السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan mar labaad magacaygu waa Suldaan Aadan fideogii u dambeeyay waxaan kaga soo hadalnay ChatGPT tiknoolajiyada cusub ee lagu dhisay OpenAI fideoga waxaan doonaynaa inaynu kaga hadalno front end developer xirfada qaabkaad u baran lahayd sidoo kale muxuu yahay coding muxuu yahay haddii aad ku cusub haddii ay tahay markii ugu horeysay channel ku cusub tahay videogana like noo saar sidoo kale channelkeenana subscribe noo saar okay haddaynu haddaba isla eegno waa maxay codebin waxa weeyaan waa online code editor kaas oo community fara badan ku dhex jiraan ama groups fara badan kuwaas oo kusoo gudbiya runtii projectiyo aad u fara badan haddii ay noqoto projectiyo lagu dhisay luqadahan front endiga HTML iyo CSS iyo sidoo kale JavaScript lagu dhisay haddaba saynu u tijaabino wadaba xaggan sare ayaynu ku qori doonaa codebin markaad ku qortid linkiga ugu horeeya website-ka kuu soo baxa ayaad ku dhufan doontaa okay sida haddaba markaynu eegno waxaynu ku dhufan doonaa linkiga ugu horeeya linkiga ugu horeeya markaad ku dhufatid wuxuu ku tusi doonaa inuu waxaad arki doontaa inuu ku leeyahay isdiiwaangeli oo website-ka iska diiwaangeli okay qaybtan u horeeya waxaynu ku eegi doonaa haddaba qaabka la isugu diiwaangelinayo codebinka sida aad akoon cusub uga samaysato okay website-ka markaynu gudaha usoo galno waxaan arkaynaa inuu laba option ina siinayo oo midna tahay sign up midna ay tahay login xagga ay ku qoran tahay sign up ayaynu ku dhufan doonaa oo maadaama ay tahay markii kugu horeysay haddii aad hore usoo gashayna login ayuu ku siinayaa sign up markaad tiraahdid okay sign up markaad tiraahdid waxaynu arkaynaa in xaggan la leeyahay waxaad ku xiriirsan kartaa haddii aad leedahay github oo ah meel projectiyo fara badan lagu diyaariyo run ahaantii sidoo kale emailkaaga ayaad ku xiriirsan kartaa waxaan odhanayaa emailkayga igu samee magacaaga ayaad ku qori doontaa magaca u horeeya sidoo kale username ayaad u samaysan doontaa sidoo kale xaggan waxaad gelin doontaa emailka aad doonayso inaad ku xiriiriso waxaan gashan doonaa xaggan markaad emailkaagana gashato okay sidoo kalena password ayaad u samaysan doontaa waxaan odhan doontaa mid isii sidoo kale isagaa ku siin doonaa mid sirjasana oo isagu dhammaystiran okay username-ku uu leeyahay waa la qaatay wanba ku dara xaggan okay okay intaa markaad usoo samaysatay qaabkan ayuu igu soo dhigay aniga ayuu qaabkan waxaad arkaysaa in xaggan aad ku qoranayso luqadaha aad ku qoranaysay HTML-ka ahaa sidoo kale CSS-ka sidoo kale wixii JavaScript-ya xaggan luqadaha aad ku qoranaysay waxaan odhan doonaa xagga background-ka hore ayaynu tegi doonaa okay hadda waxaan isla eegi doonaa website-ka markaad soo dhex gashid qaabka projectiyadu u shaqaynayaan sidaa markaad usoo dhex gashid wuxuu leeyahay qayb ah codebin pro ah oo yacni tusaale ahaan qaybaan free ahayn iyo qayb freeya projectyada laftirkoodu waxay ku kala duwan yihiin waxay kala leeyihiin qayb freeya iyo sidoo kale qayb pro ah oo lacago oo aad iibsanaysid okay haddaba trending xaggan ay ku qoran tahay waa projectyada hadda socda yacni waa projectyada hadda la sameynayo wuxuu leeyahay kale following يعني waxa weeyaan dadka projectiyada aad soo gelinaya ayaad follow gareynaysaa sidoo kale waad la soconaysaa runtii waxyaabaha ay soo geliyaan xaggan kale your work ku qorantayna waa adigu projectiyada aad diyaarisay iyo waxyaabaha diyaarisay haddaba haddii aynu isla eegno
sidoo kale xaggan hoose iminka projectigaas oo kale wuxuu leeyahay beacon light background ka uu ku qoran yahay waa light background bixinaya background bixinaya lighter fara badan runtii oo aad u kala duwan haddii aynu eegno haddaba projectigeenan labaad haddaynu ku dhufano qaabka uu shaqaynayo marka ugu horeysa waxaynu arkaynaa in luuqado fara badan lagu dhisay runtii luuqado multiple language kala duwan sida HTML iyo CSS iyo luuqada program language-ka ee JavaScript-ga ah haddii aynu hoos ka eegno waxaynu arkaynaa koob iyo caagad oo caana ka qubanayaan sidoo kale koobka haddii aad hoos dhigto waxaad arkaysaa in caanahaasi ku dhex jirayaan amba haddii buuxsamana hareeraha ay ka daadanayaan okay intaa markaynu isla eegno runtii waa animation aad u qurux badan oo laga sameeyey luuqado 3 luuqadood oo keliya ismodernized 3 luuqadood oo keliya laga sameeyey iyo runtii projectiga intuu leeyahay comments ayaa jira runtii oo ah faalada inaad ku qoratid qaabka ka faalootid projectiga qaabka loo sameeyey inaad tiraahdo projectigaasi uu qurux badan yahay iyo waxyaabaha aad ku diidayso okay haddaba sidaynu iskula tijaabino oo ku dhex samayno projecti haddaynu tijaabino bal projecti qaabku u shaqaynayo code beanka tusaale ahaan h1 ayaan sameeyey oo ah headingkii amba ciwaan weyn baan u sameeyey sidaynu wada ogsoonnahay ciwaano waxuu kale leeyahay html-ka markaad qoraysid ciwaano fara badan h1 h2 h3 okay marka ciwaan h1 waa ciwaan weyn bay ka dhigan tahay qoraal baan ku dhex qoray welcome ah yacni markaad welcome oo ciwaan weyn igu soo saaro okay diif baan samaystay oo iyaduna ii kala qaybi tusaale ahaan welcome gaar igu qor waxa dambe aan samaynayana gaar igu qor iyadana okay intaa markaan sameeyey waxaan u sameeyey input yacni in aan wax ku dhex qori karo dhiiftaa oo bottom ah okay bottomka markuu ii soo saaray waxaan ku dhex samaynayaa markaa click ayaan leeyahay button click la taaban karayo markii la taabto ay wax ii soo baxayaan okay inputkana waan soo samaystay marka inputka laftirkiisa waa inuu message kasoo dhex baxo marka click la siiyo oo faaliyihiisa click baan ka dhigtay on clicktana yacni marka click la siiyana message waa inuu ii soo bixi karo okay marka dhiiftiina waan soo xidhay haddaba iminkana waxaanu eegi doonaa bal css-ka ayaynu ku qurxin doonaa oo css oo ah iyaduna luuqadii wax lagu qurxinayay okay h1 iisoo qabo baan idhi oo ciwaankii koowaad qoraalkiisa waxaad iga dhigtaa red qoraalka waxaad igu bedeshaa kalarkiisa casaan haddaba margin left ayaan odhanaya yacni waxaad ii dudaa amba waxaad geysaa xagga dhexdage oo yacni dhanka bidixda u durki marka xaggaas u geynayaa 48% yacni waa intuu durkinayo okay haddana iminkana waxaynu soo qabanaynaa bottomka ayaynu soo qabanaynaa bottomka kalarkiisa waxaynu ka dhiganaynaa caddaan waa qoraal ku dhex jira sidoo kale waxaa jira waxa dhaa background color oo yacni dusha ah backgroundka dusha kaga jira isna waxaad igu bedeshaa baan leeyahay background colorkiisana green iga dhig tusaale ahaan isna waxaad isku meel iga dhig oo margin left yacni waxaad u leexisaa xagga iyo bidixda okay haddaba xagga isna markaynu isku meel u wada leexino 50% u wada leexiyo waxaad u samaysaa bedding yacni waxaad iga soo waxaa la odhanayaa waxaad iga soo jartaa gidaarka isna 13 pixel yacni waxaad iga soo jartaa qoraalka ku dhex jira backgroundka dhexdiisa 13 pixel iga soo jar okay waxaan arkaynaa sidaynu arkayno wuxuu ii sameeyey qoraal iyo click button ku dhex jira sidoo kale background aad u weyn qoraal aad u weyn oo green aan arkaynaa si aynu u soo yarayno waxaynu sameynaynaa width aynu sameynaa amba cabirka aynu soo yarayn doonaa oo waxaynu ka dhigi doonaa 50
percentage cabirkiisa. Okay, oo 50 pixel bay ka dhigi doonaa. 50 pixel markaynu ka dhigno haddana qaabka markaynu ku soo baxay HTML iyo CSS keeni bal iminkana JavaScript ayaynu ku hagaajin doonaa si uu button-kani u shaqeeyo. marka function baan samaysan doonaa function aan u bixiyay message. functionka waxaan u samayn doonaa variable variable-ka waxaan ku dhex qori doonaa waa in box ii soo baxo. boxka oo waxa haddii imika qoraal amba who are you amba waxa who are you oo kale ayaan ka dhigay imika. marka qoraalka ku dhex jira waa inuu ii soo bixi karayo marka click la siiyo button-ka. Okay, inta markaynu soo samaysanay waxaynu arki doonaa haddaba click markaynu siino qoraalka ku dhufano waa in uu ii soo bixi karayo JavaScript-ga. markaan click siino waa in uu ii soo bixi karayo message. Okay, prompt message buu soo saaray who are you. tusaale ahaan magacayga oo kale ku qori doonaa. magacayga markaan geliyo markaa click markaan siiyo waa inuu yidhaa I am Sultan. anigu I am aan ka horeysiiyey iyo variable magacii aan geliyey. haddii aan waxba gelin wuxuu soo saari doonaa inuu null yahay, yani waxba kuma dhex jiraan. I am null, yani waxba kuma dhex jiraan. okay, marka insha Allah tan doonayay insha Allah marka inaynu u tijaabino qaabka inagu soo baxayay code binku iyo qaabka u shaqeynayay. sidoo kale ha iloobin inaad like noo saarto, videogana share galiso. wixii su'aal aad qabtana commentiga inagu qorto.